xikmadihii Sheekh Axmed Diidaad caalimkii waqtigiisa ku bixiyay faafinta diinta Islaamka. qofna markii uu dhalanayay ma uu dooran midabkiisa, nasabkiisa, hantidiisa iyo cidda uu noqonayo. Haddii aadan abuurka ixtiraamayn abuuraha ixtiraam. Cadawga ugu weyn ee Islaamka waa muslimka jaahilka ah, kaas oo xanaaqiisa iyo xamaasadiisa ku samaynayo falal sumcad darro u soo jiidaya Islaamka. Dadka kalena markii ay arkaan waxay moodayaan inuu Islaamku yahay isaga oo kale. Anigu muslim baan ahay, Islaamkuna waa diin dhammaystiran, laakiin anigu ma ahi insaan dhammaystiran. Haddii aan gaf ku dhaco, Islaamka ha canaanan ee aniga ee canaanta. qofka gudaha ka wasaqaysan ma suuraysto inay jiraan dad wanaagsan. Dadka kuwa ugu dhaqanka xun waa kuwa markii ay caroodaan wanaagaaga inkira, sirtaada faafiya, noloshaadana diida, waxa aanad ahaynna kaa sheega. annagu ma nihin kuwa kadib dhacsan reer galbeedka, balse waxaynu nahay kuwa kadib dhacsan Islaamka. Caalamka waxaan uga harnay kadib markii aan ka tagnay diinteenna. waa inaad Ilaahay ka filataa waxaanu garaadkaagu sugayn. Ilaahay wax walba wuu awoodaa. joogidaada iyo la'aantaaduba Islaamku waa isugu mid, balse adiga Islaamka la'aantii waad lumaysaa. Islaamku adiga la'aantii wuu guulaysanaya, laakiin adiga Islaamka la'aantii waa qasaaraysaa. waxaan aaminsanahay inaan leeyahay kan keliya ee wax abuura, wuxuuna noo soo diray rusul iyo nebiyo si ay noo hagaan.